waxaa maanta si rasmiya gelinkii dambe xadhigga looga jaray xarunta Ismail Dental Clinic oo laga furay magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal taasi oo ay si wada jir xadhigga uga jareen wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha tiknoolajiyadda iyo cilmi baarista Soomaaliland mudane Cali Xamuud Jibriil wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Faarax iyo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen maayirka xigeenka degmada Boorame Cumar Ilaahay Jamaale wareenti waxa hadalka qaatay maayirka xigeenka degmada Boorame Cumar Ilaahay Jamaale waxaanu ka dhawaajiyay Ismail Dental oo aanan runtii hore ugu arag magaalada Boorame aad iyo aad baan u hambalyeynaya ciddii ka shaqaysay hawshan iyada ay ka soo tagasho degmada Boorame wax kasto horumar soo kordhayna waa wax anaga noo soo kordhay haddana nahay mas'uuliyiinta degmada runtii qalabkan iyo qaabkan loo dhigay iyo nadaafadda meesha waa midaan aad ugu bogay oo heer caalami ah waxaan rajaynayaa dadkii hawshan waxaan ku raadayay suurtageliyay in lagu ilaaliyo standardka hadda ay joogto waana Britoli laga caajisin nadaafaddu soo ahaato nidaamku soo ahaado geestooda waxa hadalka iska daba qaatay wasiir Cali Xamuud Jibriil iyo wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane Mustafa Faarax Ismail Dental oo maanta ay bishu tahay 18 January oo xadhigga ka jarnay Ismail Dental oo ah Boorame laga furay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa service fiican ama shaqada fiican ee qabateen oo markii ugu horeysay arko meel sano kala sida aan warbixinta ugu siinayay meesha furay waa Israa'iilka oo markii ugu horeysay magaalada Boorame ay hesho oo ay awal u tagi jireen Hargeysa oo wax fiican baa soo kordhiseen shaqaalaha ka shaqeeya maajaan bahadan iyo local bahadan iyo inanka wakiilaha meesha leh Jamaal Xasan Cabdullaahi oo ah wakiilaha meesha aad iyo aad baan u maqnaa Jamaal sida wanaagsan sida aqoonta baratay iyo serviceka magaalada soo kordhisay baahi magaalada Boorame taalay ayaa maanta qabtirtay dad badan oo u safri jiray meelo kale oo gobolka degan baa maanta soo dhaweysay أحسن حاجة ما تمشي تستوي جينوري إلى الحركة تجنو إسماعيل دنتال كلينيك حرم عفمات ويكها حرم تروح ويا حرم صوب بقي حرمه هراء سيجري مقالة دنتال كلينيك هاي يعني كسو كليين ينا لقد كسو كليين يوم بيعملوا دروان أكيدا واحد مجلاه يقبري إن عينا نقطة حرم شغالين إسا أبعاد بدن يد بعض بدن بقول تسمى إلا إلا هاي قرب خير كمين السيوس إلا هاي أبعاد تين قدر قاضو geestiisa isaguna waxa hadalka qaatay mudane aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorame iyo degmooyin kale waxaana tibaaxeen halkan ka qayb galno wasiirada iyo xildhibaanadii golaha deegaanka xigeenkii magaalada Boorame oo furaya Ismail Dental Clinic oo meel fog ilkaha lagu daweeyo ama lagu hagaajiyo runtii dadkeenu badankeenu ma arkaan ilkuhu inuu muhiim laakiin ilkuhu waa qayb weyn oo nolosha ka mid ah waxaan arkayaa in ay tahay markii ugu horeysay magaalada Boorame Dental Clinic ama rug caafimaad oo xagga ilkaha ah oo markii ugu horeysay laga sameeyay oo casriyaysan runtii waa meel nadiif ah qalab fiican u yaalo shaqaalo dhalinyaro iyo dad ajnabi iyo dad maxay ahayd reer Soomaaliland ay joogaan xirfad leh ku mahadinaya aan ku hambalyeynaya inay dhalinyarada ku dayato Jamaal Xasan Cabdullaahi oo wakiilaha oo ay dadku wixii baahidii halkan jirtay ee loo tagayay meel kale inay halkan u keenaan horta halkan markii aan soo kacayna hawl kale aan muudayo ganacsi iyo waxba aan muudayo laakiin wuxuu ma arkay jaaris meesha ka banaana inuu yimid horta waan u mahadnaqayaa Jamaal fursadda wanaagsan iyo jaaris uu ka faa'iideeyay iyo horumarka uu gobolka soo kordhiyay midna waan u sheegayaa oo kullay dadku waxay ka caawdaan inta badan jaad baa wadanka Ilaahay ku bileeyo ilkeenii qaba ilkii horta inaad noo soo celiso magtii jaadka noo soo celiso insha Allah Ilaahay waan ku rajaynaynaa kullay xukuumaduna way soo dhaweynaysaa dadka dhalinyarta ah ee sidaan oo kale jecel horumarka markii Ismail Samatarnooyi warsoon mid baa naga dhinay oo tabeyn taasuna Jamaal bay Jamaal haduu yimi insha Allah doorashada kadib waxa filaya inta jihaadkii ka soo gudubtay ka soo badbaaday halka inaad ka u sameyn doonto insha Allah
waxaan aad iyo aad maanta ugu mahadcelinayaa inanka dhalinyarada ee da'da yar ee intiisa ka weyn aan abtiga u ahay ee ku soo kordhiyey gobolkii Awdal dhakhtar caalami ah oo aan hore uga jirin oo maanta wax aad iyo aad loogu farxo ah geestiisa isaguna waxaa hadalka soo afmeeray mulkiilaha goobtan Ismail Dental Clinic Jimcaale Xasan Cabdilaahi waxaanu ka dhawaajiyey waxaa kaloo xoog ugu faraxsanahay in maanta intaasoo xukuumaddiya oo wasiiradii iyo golihii deegaanka iyo degmada Boorama ay kala soo qayb galaan runtii dhakhtarkan Ismail Dental Clinic markaan furiyey markii ugu horreysay ku soo dhacday waxaan arkay gobolka waxaan dadkii wax ka bartay jaamacadda Camuud baan ku bartay qaybta ilkaha ka qalin waxaan isweydiiyey gobolkaagii iyo dadkaagii maxay u baahan yihiin waxaan arkay waxaan ka soo shaqeeyay Hargeysa in muddo waxaan arkay dadkii intay Boorama ka yimaadeen Hargeysa maraya gaari soo raacaya albaabkii laga xirayo waqtigii uu ka dhacay timekii uu ka dhacay oo Hargeysa ka yimid Boorama oo ka yimid oo gaariba noor soo raacay oo yar dhakhtarka igu sheeg markaa waxaan go'aansaday waalidkaygii markaan la tashaday inaan furo meherada ay dadkaygii ku nastaan oo gurigooda hortoosinta ka soo toosaan adeegga u baahnaa in loo qabto isku soo wada duub oo xaruntan casriga ah ee Ismail Dental Clinic ayaa waxay noqonaysaa meelihii ugu casrisanaa ee laga furo magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal ee lagu dayaatirayo ilkaha Xuseen Aateeye Jaamac Telefishinka Caalamiga Rayo magaalada Boorama.